waxaan rabnaa dadkaas nimankaas marka in Soomaaliya meelay joogtaba laga cadeeyo mowqifka ay Soomaalidu ku taagan tahay inaysan ku dul qaadanayn aqbali karin dhibaatada intaas la eg waxaan rabnaa fariin aan u dirno dawladda Soomaaliyeed waxay mas'uul ka tahay dadkeeda sharaftiisa maalkiisa iyo naftiisa dawladda waxaan ka rabnaa gambashada inay ka baxdo inay cadeyso تعدية dadka Soomaaliyeed loo geysanayo isdaba jooga dawladdu inay ka dhawaaqdaan aan u jeedinayno fariinaga ah group looguma talagelin dadka inay fiirfiiriyaan inay hubka una qabaytaynta hubka Soomaaliya iyo elektriga shaqeeya loogu talagalay tiina waxay ku bedeleen ragga Soomaaliyeed oo yahanka ah indheergaradka ah ganacsatada ah dadka dalka sharafta kule inay baabi'iyaan waana diiday taas waa ka soo horjeednaa waxa ujeedadoodu tahay qof kasta Soomaali oo dhaqaaqaya oo wadaninimo ku jirto oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo ku jirto oo dhig ku jiro oo midayn ummadda Soomaaliyeed ku jirto inay taarget gareeyaan inay liishaan ka saaraan yiraahdaan kaasi waa tu kaasi waa argagixiso kaasi wax uu xaday qof ay dhaafayaan male waxaan ka codsanaynaa UN-ka arrintaas inay joojiyaan waxaan ka codsanaynaa inay raboorada iyo warbixinta ay soo gudbiyaan dib loo daalacdo waxaan ka codsanaynaa inay shaqada ay haayaan la hakiyo oo la joojiyo